horta waxaan rabaa inaan ka bilaabo Ethiopia maxaa ku bixiyay saacadan ay soo dhamacdo oo dhulka Soomaaliya ay soo dhamacdo maraan sii fogeyn wasiirka waxbarashada Ethiopia wuxuu sheegay in 684,000 oo arday imtixaankii dugsiga sare sanadkan ay u fadhiisteen wuxuu kaloo sheegay in 36,000 bas ay baaseen 680,000 oo arday ayaa waxa ka barmoosay 36,000 kaliya يعني 650,000 waa dhaceen su'aal marka dad badan isweydiiyeen ahayd maxaa keenay in tir intaas la eg oo imtixaanka ay ku dhacdo kilinka shanaad oo kale deegaanka Soomaalida sida la socotiin waxa imtixaan u fadhiistay 21,000 oo arday meeqa ka baastay isleediin 200 ka baastay iyo 60 dad badan marka waxay ku dhalisay maxay tahay sababta markaan sii daba galay laba arrin sabab ah horta koow jaamacadii Ethiopia ardayda ma qaadaan sababtoo jaamacadii waxa ka tagay macallimiintii TikTok iyo taxi ku xamaashaan mishaarkii waa iska bixi waayeen dawladda mishaarkii bixi weysay معلق جامعات إثيوبيا مشاركة سنة $100 مدة أسوا قضب مدة كلا وحواي وحال الربا أرددان إن أي قيار كلا ويان أو كأهين إن أسكرت كبيران مركو أردد جامعات وايو حقوق أسبيها إنه كبيرو أسكرت إنه كبيرو إثيوبيا دقالي كسب بحدي منه يكون جرتها درتان جده هذا ودقال كي تكريه كسب بحدي oo aadka u cusla oo la wada socotaan haddana waxay ku jirtaa mid gobolka Amxaarada ee gobolka Oromada ah waxa la sheegaa Ethiopia inay soo dhoofsato 19 bilyan oo dollar soo dhoofsigeeda ay dibadda waxay ka soo dhoofsato waxa la yiraahdaa 19 bilyan oo dollar waxa ay dhoofisana waa 4 bilyan trade deficit-ka marka u dhaxeeya waa 15 bilyan oo dollar وأرك كرتها مرك أنتوا اللي يجي هاي دقالة ودماذا وحكوا صوب بيرتهدى تان أن دينتي إسكب بحكري أنا هذا دينتي وإسكب جود نسومة هاي دينتي ما بحكران صدر مليون هاي صدر 6 مليون بشي إني بحيان وبحلاقين IMF إيوال بنكية أو يمد إني ريسكيو جرايا معناه إني بدباديان سير لوكا ومركا دقالها كلا دمن وحال سينا يا لو 2.5 bilyan sanad walba la sii doona laakiin maxaa laga rabaa ayagana waxa laga rabaa dhaqaalaha inay furfuraan oo Ethiopia Airlines ay iibiyaan Telecom-ka ay iibiyaan bangiyada ay iibiyaan ay dhaqaalada awal dawladda gacanta ku haysa ayaga marketka inay furfuraan laga rabaa hadda aan hadlayno gobolada Amxaarada ah sanadkii hore arday imtixaanka fadhiistay 1 milyan ay ahaayeen 400,000 oo hadda ka maqan waxay la maqayn gobolada Amxaarada lagama fadhiisan imtixaanka wala geli waayay imtixaankii maleeshiyada hubaysan haysta jabhada ah waramadana waa sidaas hadda waxa laga hadlayaa Tigreega markii la weerarayay sida la socotaan waxa isugu tagay Eritrea iyo Ethiopia isugu tagay iyo Amxaarada Ethiopia ogaada ciidanka qarankana waa jira gobol walbana wuxuu leeyahay ciidan la yiraahdo waxa anaga liyu la yiraahdo booliiska dhinaceena macni special force qolo walba leedahay oo deegaankeeda ah marka maleeshiyaadkii Amxaarada gobolka Amxaarada iyo Tigreega iyo waxa isugu tagay iyo Eritrea iyo dawladda Ethiopia ciidankeeda waxay isugu tageen Tigreega hadda Eritrea Ethiopia isku ma fiicna oo afwarkii way kala boodeen Abiy Ahmed hadda Tigreega wuxuu leeyahay dagaal igula qaada Eritrea wuxuu kaloo ka rabaa Tigreega inay dagaal kula qaadaan Amxaarada oo hadda gacanta ka baxday ka dhacday Abiy kuna tuhunsan inuu yahay inuu khiyaanay waxay u dagaalamayeen oo ah in laga takhaluso Tigreega Amxaaradii waxay leeyihiin waa khiyaantay ujeedka waxaan kugu raacsanay in Tigreega laga takhaluso waa ka soo noqotay dagaalkii Tigreega la heshiisay afwarku wuxuu leeyahay waa khiyaantay oo Tigreega inaan ka takhalusnay ahayd waad ka soo noqotay
oromadii waxay leeyihiin nin oromo aan kuu malaynaynin nin oromaa inaad tahay oromonimaad noo sheegtay oromonimo meesha kuma haysid waana khiyaantay wuxuuna ka shaqeeyaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia inuu isku dhufto qowmiyaadka Ethiopia waana ogaatay Ethiopia marka saddex la isku haystaa waxaa la isku haystaa dhulka deegaanka waa la isku haystaa oo Tigreega iyo Amxaaradana dhul isku haystaan Amxaarada iyo Oromadana dhul isku haystaan qabiilada kale dhulka isku haystaa waa badin laakiin saddexda majorka ay inii sheegaan oo awoodaha dhulka isku haysta waxay kale isku haystaan diinta Kiristaanka dhexdeeda waa la isku haystaa ninkaas ogtihiin waa Protestant Abiy Ahmed majority-ga dalkana maxaa waaye Orthodox waaye oo kaniisadda tali jirtay midoo hadda asaga inuu impose gareey rabane oo Orthodox oo Pentecostal niman la yiraahdo ka tirsan yahay asaga Muslim iyo Masiixina waa la isku haystaa oo Amxaarada dhexdeeda dadka muslimiinta Amxaarada xataa way xasuuqaan maxaa la isku haystaa dhulka diinta iyo xukunka marka waxa sawir kooban aan ka siinaa marka Ethiopia saas ah iyo Abiy inta ka soo baxay oo wuxuu yiri badda cas inaan tagnaa rabnaaho waa dumuuxii ama waa damacii Menelik tuu oo ku riyoonaya ah Ethiopia inay badda cas tagto Ethiopia badda cas waa joogi jirtay Eritrea ka tirsaneed ayaga gooyay Eritrea oo siiyay inay ka baxdo Ethiopia sababtana waa ogtihiino Eritrea jabhadu waxa ka jirtay 60 sano u dagaalamaysa xorriyadda Eritrea waxay gacan siisay marka jabhadii TPLF-ta ee dalka 90kii qabsatay gacan isla ahaayeen ay wadaag ahaayeen bahwadaag ahaayeen waxa lagu heshiiyay TPLF Ethiopia inay qabsato Eritrea la madax banneeyo badii marka dhinaca Ethiopia waxay aaday Eritrea aaday hadda marka wuxuu soo celiyay demands la yiraahdo badda cas yaan tagaynaa badda cas aan tagaynaa markuu yiri san dalaa waxa u shidmay alert u shidmay shantaas dal waxa kamid ah Soomaaliya Suudaan Djibouti Kenya iyo yaa wadanka shanaad Suudaan waa sheegnay Suudaan Eritrea عفوا هي Eritrea ها shantaas u shidmay alert u shidmay dabcan su'aasha dan ka jawaab cadow muxuu anaga noo soo aaday waa tabaryarida taa shaki ma leh inaan miskiina waxa la yiri miska la fuula leh laakiin dood kale oo dhaysaa jirta haddaad Eritreanka la sheekaysto waxay ku leeyihiin Abiy wixiisa waa bluffing waxa waaye Soomaaliyan aadaada waa been meesha u soo socdo waxa waaye waa casab oo soo socda waxay ku jiraan hadda alertii u dambeeyay ee Eritrea ay ku jirtaa asaga marka muxuu wadan leeyahay inuu mashaakilka gudaha ku haysta oo xalil la yahay oo culayska ah inuu kaga mashquulay shacabka Ethiopia oo yiraahdo waxa inii soo dhiciyay waxaad waliga ku riyoonaysiin oo ah badiyaan inagii waa ka rabiyaa ko wuxuu kale ka rabaa wuxuu isku arkaa asaga nin Ilaahay doortay hooyadiisna asagoo yar ay ku riyootay inuu boqorka Ethiopia noqon doono ninka Ethiopia dhaxal sii doono shay taariikhi asaasna asaga aaminsan kaligiis waa inaad khuraafada u aaminsan xagga diinta markii la yiraahdo dadka anaga hadana maaragtay khuraafiistayaashu kamid yahay ninkan khuraafo badan oo aaminsan yahay taasna waa aaminsan yahay laakiin muxuu rajika marka ku keenay gobolka marka wuxuu ku keenay in qof walba ay shidato ay casaan ay shidato oo liya warne gobolka nin halisa ku soo beeray gudaha Ethiopia waa inii sheegay xaaladda ka taagan waa wali waa si kooban waa isaan u sheegay rijinkana saas oo kale waa hal qof oo aaminsan Abiy ma jirto qof walba waxa isleedahay ninkan halista ah goormo dhinacaaga oo soo aadi doona dabcan Suudaan iyo asaga dhul isku haystaan Masar iyo asaga Niilka isku haystaan inkastay dariska kamid ahayn Masar laakiin basan maxay kamid tahay dawladda badda cas ay kamid tahay laakiin Niilkana waa isku hayaan Kenya oo ay Ethiopia isku fiicnaa jiray hadda waxay ku jirtaa dhufaysi ku jirtaa waa la yaaban tahay ninkan goormo asaga dhulin ku sheega doonahay ay dhufaysi ku jirtaa Djibouti waa ogtihiin oo waxa ka socda dekada uu isticmaali jiro waaye ayda nafteeda halis goormo ku soo jeesan doona qof walba marka wax isleedahay ninkan gantaalkan socdo goormo xaqiina u soo jeesan doona marka rijinkiina maxaa looga jiraa dhufaysa loo taas marka maxaa ka ratimaaya in rijinka naftiisa ay si collective oo wadaag ah ay asaga uga galaan ay dhufaysa uga galaan marka horta waxaan rabaa inaan ogaano Ethiopia anaga tabar badan nama dheero balse anaga ka fiican runtii waxaan uga fiicanahay
وأنا كل العليا أنا وحنا ودن اسكو إيمان يعني أيجن وودن كل تجاي أنا ودن هراء وكل تجن صح واسياشنكي لكن يكهربا لكن هذا ويا كم توجده ضد اسكو إيمان يعني دين نسكو ما هيسنو سيدو دوكله عرقنا اسكو ما هيسنو لولنا اسكو ما هيسنو سومالي هذا أنا قدرتان وحنا اسكو هيسنو سياسة حمو dhexdeena iyo hogaanan jiro ma laakiin anaga isku ma haysano wax ayaga isku haystaan dhexdooda ka jira waxaan kaloo nahay dal isku iimaanay ayagana waa dal kala tagay marka macna ma laha mar kale aan ku noqon doona macna ma laha goodisku uu sheegay Soomaaliya bad tabar oo bad ku qaatana ma laha Soomaaliya hadda badka ma qaadan karo taas macnaheedu ma marka qadarta keentay Ethiopia saas inay ahaato waxa anaga qayb ka nahay maaha marka anaga qadarta kuma tashakarna marka لكن أنا وحنا إن إزدفاعنا وأن دفاعنا حرنا وأن اسكت تشنان لك الربع لكن حالة إثيوبيا وحالة تاسعة وأي ظروفتك أنت حالة هذا لو قولوا لك بقى معها معناه إذا معها إن أن اسكت إحنا وحنا الدفاعين معها لكن وحنا إن أن نصور كبعيو ده كجواب سؤال أنا واي أبي نسوا هذه كوهرته بروبلم جدوها درادي سو نسوا هذه وإنه سجل جديد ربدت كيسة لا بوحوس للصومالية أي تقدرن سدحنا قدالة كفسير دوناي أبي نفتيسا ايجنتي أو وكيل دولتها قبل كبو وكيل كيها تسقيت الدنبان أيضا أكون فسير دونا دولة هنا ما سنت